Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You're listening to Somali Public Radio, live at 90.3 in Minneapolis and 106.7 FM in St. Paul. You can also follow our programs on our website at www.spr.fm. This program is hosted by your very own Abdul Qudus Donyale and produced and directed by Abdiyare Kurhan. Over half a century ago, the Minneapolis-St. Paul area had a network of streetcars, but the tracks were removed and services were eliminated officially in the 1950s. Over the past several decades, various local groups have lobbied for a reintroduction of a modern rail transport in the Twin Cities due to traffic congestion that has grown significantly in the metro area. Since the turn of the new millennium, the idea of a rail line down Hiawatha Avenue grew popular. Within several years, in 2004, a light rail line became operational down Hiawatha Avenue. The line is administered by the Metro Transit, which is also the primary operator of the buses in the Twin Cities. The line accounts for about 13% of Metro Transit total ridership, and less than 2 years after opening, the line had already exceeded its 2020 weekday ridership of 24,800 passengers a day. Riders were attracted by fast, quiet line services to 19 stations between downtown Minneapolis and the Mall of America. Due to high approval rates, plans of expansions were quickly penned and work began lengthening the station's platform. But does this massive development pose a challenge for low-income communities who reside in neighborhoods that the train travels through? A research done by the Center for Urban and Regional Affairs at the University of Minnesota concluded that urban neighborhoods experience displacement of existing businesses when a light rail train station is built. Large increases in property values and taxes drive up commercial rents, making it difficult for small businesses to compete in the new environment. In the Cedar Riverside neighborhood, the West Bank Community Development Corporation and the WBCC have combined to create a group called Don't Pass Us By. They're sponsoring a forum to talk about the light rail development at 2 p.m. on Saturday, June 15th at the Brian Coyle Community Center in Minneapolis. To acquire more information about the Central Corridor Light Rail that will connect Minneapolis and St. Paul along the University and Washington Avenue and the impact it could have on local residents, we've reached out to Tim Mungovin, the Executive Director of West Bank CDC, and Hussein Castelli, the Director of WBCC. Bismillahirrahmanirrahim. daawadayaal dhegaystayaal kusoo dhawaada kuna soo durka idaacadda bulshada Soomaaliyeed ee Somali Public Radio aad kala socotaan mowjadaha dhererkeedu yahay 9.3 iyo 1.6.7 magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul iyo waliba dalka Soomaaliya. Galabta iyo barnaamijkeeni falanqaynta barnaamijkeena ayaa waxaynu ku eegeynaa xaaladaha cusub oo ka soo kordhay magaalada Minneapolis, gaar ahaan tareenka light railka oo dhawaan si toos ah shaqo uga bilaabi doona magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul. Tareenkaasi ayaa waxa uu dhex mari doonaa xaafadaha Cedar oo ah xaafada ay ugu tirada badan yihiin Soomaalida guud ahaan waqooyiga Amerika. Xaafadan ayaa lagu qiyaasaa in ka badan 7,000 oo shaqsi Soomaaliyeed inay ku nool yihiin. Barnaamijkan ayaa waxaynu ku eegeynaa saameyn noocee ah buu ku yeelan karaa tareenka cusub ee soo dhex mari doona xaafada Cedar. Waxaana la fadhiyaa gudoomiyaha West Bank CDC Tim Mungovin iyo sidoo kale waxaana la fadhiyaa gudoomiyaha WBBC ama West Bank Community Coalition Hussein Castelli. First of all, let me welcome you all to Somali Public Radio. Thank you. So my first question, and this program will be both in Somali and English. My first question, let me ask Tim. Next year, the light rail that will be connecting St. Paul and Minneapolis along University and Washington Avenue is scheduled to be operational. Can you discuss some of the pros and cons that this infrastructure could have on the neighborhood? Well, I think it's got some clear advantages for the neighborhood in that, first of all, it will provide residents of the neighborhood an opportunity to get around better to other places. Mm-hmm. But it also will bring new customers for the businesses in Cedar Riverside, which is good. But on the other hand, what has traditionally happened in communities that have a light rail station placed in their midst
is that the taxes go up, the property taxes go up, and that means that the commercial rents go up. So businesses tend to see higher costs of doing business. That can be a problem for a business that's struggling. And in many communities throughout the other communities throughout the country, low-income communities of color, businesses that serve low-income communities of color, had oftentimes been pushed out by the new businesses that come in. So our concern is that the existing businesses in Cedar Riverside might have pressure to be displaced. So your organization, along with WBCC and others, have came together to create a group called Don't Pass Us By. Right. What exactly do you mean by Don't Pass Us By, and what are you trying to accomplish by forging relationship with other groups, concerned groups that are in the neighborhood? Well, Don't Pass Us By means we want to be part of that prosperity that's coming. We don't want the existing community to disappear and have somebody else enjoy the prosperity. And we believe that the way to do that is to have as broad a coalition within the neighborhood as possible. Because it takes a certain amount of political clout and a certain amount of cohesion in the neighborhood in order to accomplish, in order to preserve the things that we care about the most. So one of the tasks that is scheduled is a community forum that your organization, along with others, are hosting next Saturday. Right. What do you plan to accomplish by creating a dialogue in the community? Well, we hope to, for one, we have a keynote speaker, Faisal Roble, who has great experience in urban policy nationally. He's from Los Angeles, and we hope will help explain what transit-oriented development is all about, what the positives and negatives are. We also will have a part of the meeting in which we have community members sit together and talk about what their concerns are and how they would like to work together to try to make sure that we are part of that future. Okay, and I'll go to Hussein Castelli, the Executive Director of WBCC. And Hussein, train ba la dhisaya oo tareenkan oo isku xiri doona magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul. Tareenkan ayaa wuxuu soo dhaxmari doonaa xaafadda Cedar. Adiga ka mas'uul ahaan oo hay'adaadii maxay tahay mowqifka aad ka taagantihiin tareenkaasi soo dhaxmarayo adiga iyo guud ahaan groupkaad ku dhex jirtid oo la dhaho Don't Pass Us By? Well, aniga horta problem waxa way arinteena waxa horta marka hore wax tareenka oo problem aan qabno ma laha. Waan gartay. Tareenka faa'iidooyin badan uu leeyahay xaafadda uu soo gudbinayo uu keenaya. Opportunity badan uu keenaya marka anaga waxba kama qabno tareenka inuu yimaado. Arinta jirta laakiin waxay tahay sida Don't Pass Us By ayaga uu sheegayo waxaan u baahanahay arintan inay noqoto mid mustaqbalka Soomaalida iyo East Africa ka halkan degan iyo immigrant-iga meeshan degan oo business-yada iyo ku leh oo sanooyinka 20 sano hadda la soo gaaray degan inay saameynin in a negative way u saameyn ay noqdaan dad la socda mustaqbalkaas oo qayb weyn ka qaata faa'iidada timaada wixii dhibaatada socda ka hor yimaado marka anaga as an organization West Bank Community Coalition position keena wuxuu yahay neighborhood inaan wax alla wax information meesha jira inaan u gudbina aan iraahna tareenka dhibaatadaas uu keeni kara faa'iidooyinka badan uu leeyahay xaalkiisa waa sidaas dadka in anaga organization citizen waxaan nahay organization la socodsiinayo wax alla wixii dhacaya magaalada ka dhacaysa citizenka meesha degan iyo business ownerska dhinacaas marka angle-kaas marka laga fiiriyo waxaa waajib nagu ah inaan dadka fahamsiino arrinta tareenka sidii loogu tabaabashaysan lahaa imaatinkiisa marka dadka qaarkood baanan fahansanayn muhiimadda ay leedahay in laga soo qayb galo wada hadallada iyo weliba doodaha looga hadlayo policies-ka saameeya xaafadaha dadka qaarkood baa aysan fahansanayn hawshaasi marka maxaad ku oran lahayd qofka ku oranayo aniga maxaa iga galayo maxaan uga hadlayaayo aniga Cedar baan iska deganayo tareenkana waa ii fududaya inaan shaqadeedii aado marka maxaad ku oran lahayd well taas dad badan waa dhaheen horena waa dhaheen laakiin waxaa jira arrimo badan jiro taariikhda inaan ka qaadanaa waa sida magaalooyin badan oo jira sida California, San Francisco, California, Oregon, sidoo kale Seattle, Washington dadkii immigrant-iga deganaa sidaas oo kale ayagan dhibaatooyin baa ku dhacay oo anagoo kale sidaas oo kale igu fadhiya ayaa la barbixiyo businesska laga qaaday marka waa wax shuur ah dadana anaga ka tabaabashaysan oo businessyada iyo dadka halkan degan ka tabaabashaysan waxa dhacay ijaarki inuu qaaliyo wax walba qaaliyo markii taas dhacdana waxay saameynaysaa noloshooda halkan waxay noqonaysaa dad meeshan laga bixiyay inay noqdaan waan gartay business badan iyo dad horena way ku dhacday society marka waa inaan
involved lagu yahay arrintan la galaa. Well, and I'll go to Tim. Tim, for our audience, can you describe how a project like this, like the light rail, is proposed and what channels of power does it go through? Well, the light rail really includes government at all levels. The money comes from the federal government, the county, Hennepin County is part of it, and the city plays some role, but the Met Council was the major planner for this. The Met Council covers the 5-county area around the Twin Cities. So there's a lot of government agencies and levels of government involved in it. Okay. But the Met Council was the leading planning agency. Okay. Hussein has just recently mentioned that displacement is one of the major concerns. Yes. What exactly are you trying to preserve here? Are you preserving a culture? Are you preserving businesses? For our audience, can you describe why is it important for the community here to remain here? Well, historically, development has often led to a change of population. Who lives in a neighborhood? Who actually uses that neighborhood? We believe that the existing community has an important role and an important place within the community, and it should be preserved as much as possible. Now, we don't know what exactly that means. We don't know exactly what things need to be preserved. We think that needs to come from the community itself. Okay. So we want to have a conversation about, well, what is it that's most important about Cedar Riverside for the existing community, and then we can focus on how to preserve that. So we don't know the answer to the question of what is it, but we know there's a lot of really good stuff here, and we should all be working together to preserve it. Most of the residents here in the Cedar Riverside neighborhood are tenants of low-income families. And if displaced in the suburbs, some believe that their chances of home ownership is much greater, which in turn can increase their personal assets and wealth. What is your take on that? Well, first of all, one of the things that's actually good about Cedar Riverside is there's a lot of the housing here is subsidized housing. Okay. And which means it's rent controlled. Okay. So you will not have as much displacement in Cedar Riverside as you do in a lot of other neighborhoods. Okay. So of residents. Okay. The major danger here is the business community being displaced. Yes. So that's our primary concern. I think the idea that somehow people being displaced is going to lead to more prosperity for them is not true. If you don't have the money to buy the house now, being displaced isn't going to help. And let me go to Hussein. Hussein, forum baad qabanaysaan, Brian Coyle buu ka dhacayaa, adigoo soo koobayo bal ma noo faahfaahin kartaa forumkaasi waxa uu ku saabsan yahay iyo weliba cidda ka soo qayb galaysa? Yeah, forumkaas very important waayo. Waxaan qabanaynaa June 15ka waa 2 to 5. Marka waxaa noo imaanaya oo meesha keynote speaker ka noqonaya oo ninka caanka oo la yiraahdo Faisal Roble wuxuuna ninka aad u bartay city planning-ka. Marka isaga ayaa wuxuu community u qeexayaa waxa muhiimadda ay tahay oo ah sidii community-yaashii naga soo horeeyay, especially magaalooyinka waaweyn sida Los Angeles oo asaga ka shaqeeyo sidii tareenka transit oriented development sidii raad ugu leedahay businessyada xaafadda. Marka waxaan kaloo soo bandhigi karnaa oo kale Metro Council balaanka ay ka qabto magaaladan, especially xaafadda Cedar Riverside 20 sano soo socda. 20 sano soo socda xaafadan isbedel weyn baa ku dhacaya. Oo noocya isbedel weyn oo dhinaca dhismaha ku dhacaya tareenka markuu yimaado. Ka bilaabana 2014 ilaa wixii ka dambeeyo. Sodonkaas sano isbedelkaas weyn markuu wuxuu keenayaa inuu canshuurta ay kor u kacdo. Marka dhismayaasha waxaad leedahay hadda soo dhismayaal kuma yaalaan, dhismayaashan hadda ku yaala meesha miyaa la burburinaya, kuwa cusub baa la dhisayaa mise boos xiriiri ah baa la rabaa in dhismayaal laga dhiso? Maya taas ma garan karno sida wax u rabaan Metro Council oo wada laakiin waxaan ognahay jidkan Cedar Riverside inay bedel weyn ku sameynayso sidaas waliba xaafadan inay dhisaso. waxaan soo bandhigi doonaa in balaanka Metro Council ay u rabto magaalada dhismayaasha iyo visionka ay u qabto magaalada inay sameyso. Marka taasna waa waxyaabaha tusi doona ka mid tahay dadka. Marka sidii dadkan waxaan rabnaa inaan ku ogaano maxay tahay waxa ay rabaan iyaga oo dan ku jirta ama dan maxay noogu jirta anaga inaan dhismayaashadeena ilaalsano oo meesha aan noqono dad sidii raasmaalan gelinaya u sii joogno oo businesseena ay thriving ku noqdaan
mise waxaan noqonaynaa dad dhinac loo tuuro developmentiga ay victim u noqdaan. waan gartay dadka qaarkood baa laga yaabaa oo aan deganayn xaafadda sidoo isweydiinayo war anigu sidoo ma deganiyay ma imaan karaa xaafaddaasi marka adigoo ku noqonayo casumaadaasi ama xafladdaasi oo aad qabanaysiin Saturday 15ka yaad rabtaan oo yaad casumaadaasi u fadhiseen hamay qof walba imaan karo waxayna saameynaysaa everybody oo qof walba immigrant ah way saameynaysaa waana jeclaan lahayn qof walba inuu yimaado maxaa yeelay waa aad ay muhiim u tahay inaan u soo bandhigno dadka saddex waxyaabo kow tareenkan iyo sidoo u saameynay faa'iidooyinka uu leeyahay magaalada iyo xaafadan sidoo yeeli doono laba dhibaatooyinka uu keeni karo saddex sidoo u raad ugu yeelan kara xaafadan iyada aan joogno markaas waxaa Faysalna wuu imaanayaa oo information aad muhiim ah meesha ka bixinaya Metro Council 20 sano balaanka ay soo wadana video aan tusinayna marka fun way noqonaysaa oo cabitaan iyo evening oo fun way noqonaysaa interactive marka qof walba waa ma aha qasab inuu inta degan qof walba imaan karo. Well, and I'll go to Tim now. Tim, much research has been done around the effect of the light rails on low-income communities. Can you point to specific examples of scenarios that are very similar to the Cedar Riverside community? There's the Rainier Valley near Oregon, Eugene, Oregon is probably the best example we have. In that one, the light rail, the community lost about half of its immigrant businesses. There were Somali and Vietnamese and Latino businesses there. Half of them were lost after the LRT came. Similar kinds of things happened in the Mission District of San Francisco when the train stations came. The period of time, between before they came and after they came, there was another 50% drop in the number of Latino owned businesses in that district. What do you think what did the research point to as this exact reason? Well, the decrease. The dynamic is that as the light rail is developed, it does attract new customers, but the cost of doing business begins to go up too. So commercial rents go up, and the businesses that are attracted there are more upscale businesses that attract a higher income clientele. So the rents go up, and the existing businesses are not necessarily enjoying the same increase in their business because of the new customers, and so they have to pay higher rents without necessarily having higher income. Okay. Another problem is that cities historically have tended to, because they want the new tax revenue that these new businesses will bring, they help the new businesses. They don't help the existing businesses. So that tends to increase the problem of displacement. So your aim is to create engagement through awareness. Why is this important? Well, it's important because the city, well, first of all, we have to talk about what it is that's important to us and what do we want to do as a community. And secondly, the city isn't going to save us from this, but unless we make demands, unless we say, yes, we want something and we want this. So if we don't do something, the city is not going to help, the county is not going to help. We're going to be in it pretty much on our own. And what's next after you create a forum, after you achieve the level of awareness that you want to achieve? So what's next? Is there a specific legal channel that's appropriate for residents and concerned people like yourself? Well, the first thing we hope people do is become more involved in the West Bank Community Coalition, which is the neighborhood group that's responsible for citizen participation. It's the official organization in the neighborhood. So more participation there, but also we're working with the Business Association and the West Bank Community Coalition to try to ask the city to give us all some money to do some specific planning about what is it that we can do, what are the specific strategies we can do in order to protect what we feel is valuable. Lastly, what message would you like to leave with our viewers, our listeners at Somali Public Radio? The message is
come and be involved because it's your future that we're talking about. Hussein, adiga laftigaaga aan kugu soo noqdo oo aan ku siiyo fursad oo aad hadaladii ugu dambeeyay aan jeclaan lahaa inaad la wadaagtid maxaad ugu baaqi lahayd dadka Soomaaliyeed ee degan xaafadahan iyo guud ahaanba magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul. su'aal fiican waay ani waxaan dhihi lahaa dadkan waxaa muhiim ah inaad ka qayb qaadataa futurekaada haddaadan ka qayb qaadan laba waxa kugu dhici kara ama waa lagaa tegayaa ama victim aad ku noqonaysaa marka waxaa muhiim ah inay dadka involved ku noqdaan especially organizationkaas hadda sidoo Tim u sheegay organizationkeena West Bank Community Coalition oo ah citizen movement organization u yahay involvement marka taas markay dhacdo waxaa sameynaa marka dadka waa wada dhegeysanayna anaga organizationkeena inaan dhegeysanaa waaye wacyiga ay dadka qabaan consensus city as a group maxay tahay waxa muhiim idin ah taas markaan dhageysano meeshaan ka dhaqaaqi karnaa waxaan ka fikir karnaa sidaan wax uga qabsan lahayn waxyaalaha laga yaabo inaad qaban kartaan maxay ka mid tahay talaabooyin noocee ah oo dawli baad qaadi kartaan oo legal channels wal waxa ugu horeeya aan sameyn karnaa horta number 1 waxa waaye dadka meeshaan degan inaan dhegeysanaa ra'yigooda dadkana haddaysan involved kugu ahaan ma ogaan kartid waxay ku fikiraan marka waa wax aad muhiim u ah inay annaga ayagaan u shaqeynaa organization ahaan waxaan u shaqeynaa xaafadan dadka degan businesseska homeownerska iyo residenceska oo rentalska marka waxaan rabaa inay intay noo yimaadaan la kulanaan aan dhahno maxaan ka wada shaqeyn karnaa markaan taas helno ayaa waxaan formulate garayn karnaa ama balaan garayn karnaa wixii aan ku dhaqaaqi lahayn talaabooyinka ayaa waxay noo yihiin powerkii aan city wax kaga bedelayn meeshaan wax bedelo waa dadka waxaan wax ku bedeli karnaa laba soo powerkaas wuxuu ka imaan karaa codkeena oo ah votekeena waxa kaloo ka imaan karaa anagoo cityga balaan sidoo Tim u sheegay balaan qoran anagoo cityga ula tagnaa dhahno waxaan rabnaa haddana waxaan rabnaa aan ula tagin cityga marna ma ku imaanays maxaa rabtaa weligeed kuma dhaxayso waan gartay marka adiga ugu celinaya dhageystayaasha ka dhageysanaya iyo waliba daawadayaasha ka daawanaya page-keena www.sbr.fm noogu celin kartaa goorta ay casuumaadaasi tahay ama xafladaasi ay tahay waqtiga adoo raalli ah ma wax dhibaatana waa ku mahadsantahay casuumaadda waxay dhacaysaa June 15keeda between 2 to 5 labada ilaa 5 galabnimo waxayna ka dhacaysaa Brian Coyle casuumaya xaafad inaad degan tahay qasab ma aha waxaan jeclaan lahayn in qof walba ka soo qayb galo maxaa yeelay waa arrin muhiim u ah waana waxay noqonaysaa evening oo maaragtay wax laga barto waxay dadka u tusinaa balaanka magaaladan 20 sano soo socda waxaa kaloo oo macluumaad aad u fiican oo sida city planning iyo sida magaalooyinka iyo tareenka uu saameeyo macluumaad fiican noogu sheegi doona nooga sharxi doona Faisal Roble oo aad loo yaqaan community-ga aad u taqaan marka qof walba waa casuumayna inay yimaadaan barnaamijkeena intaasaynu kusoo gabagabayn doonaa waxaa inala fadhiya aqoonyahan Soomaaliyeed isla markaana ah gudoomiyaha WBCC Hussein Kastali iyo Tim Mangavan oo ah the executive director-ka West Bank CDC aad baad u mahadsantihiin thank you